بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين مقعيق عبد الفتاح محمد نحن كمدة هاي معلمين كهول كشات جامعة جمهورية الصوماليلاند دراسة دي سريعة جامعة دي حكوسمية أرمها هرمرينتا يبلشدة أو إلى شهادة ماسترز ديجري أنكو قات inta marka laga yimaado oo aniga ku saabsan aan u soo noqdo mawduuca aan ka hadlayo maanta oo ah ardayga ka soo qalin jabiyay dugsiyada sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland sidee bay tahay inuu ku doorto kooraska uu ku takhasusayo jaamacadda ama heerka koowaad ee jaamacadeed oo loogu talagalay ardayda ka soo qalin jabisay dugsiyada sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland حقيقة هو موضوع آدي مهمة سجارك عليه for two reasons لبس سببات أيام مهمة جارسينية because وحويان قفكو أرضية مركو جامعة برنا وحويان وحو كجو عن قاعدنا وحويان ومستقبل كيس الصوص السعودة أنت إلهي عمر جيس أو هردي وحنو جامعة كنت تخصصية وواحد دبجلي الدونا سيدوك لي وحويان وحرفض معركتي قفك دبس عنيس أو كشق السنة أو شقة كهلي كرا عدي معركتي وجامعة ديس أو دمسترتو أنت كلام مهم الدجار كاسين سوا حويان ودناهان وحين أوباهنا هاي إن دلنيرت ودن كين غير سومالان أي برتان معركتي فيلل إن أنفع ودناهان أو كقيب قادني كوبع دقالها سياسة يبلشدة ودن كين أولي marka muhiimad gaar ah marka in la siiyo ayay tahay ardaygu sida uu ku dooranayo maaragtay daraasada jaamacadeed ee uu sameynayo ugu horeyn marka aan idhaahdo go'aanka qofku uu ku qaadanayo daraasada uu baranayo ee heerka jaamacadeed ahi waa mid uu leeyahay qofka daraasadan baranaya waxa weeyaan sida lagu xusay iclaamka caalamiga ah ee qaramada midoobay ee la soo saaray 1948 ee loo yaqaano Universal Declaration of Human Rights waxa lagu xusay in waxbarashadu ay tahay xuquuq aasaasi ah oo uu leeyahay qof kasta oo bini aadam ah qofku inta uu yar yahay waxa go'aankaas u qaaday bay yiraahdeen waa waalidkii because qofku uu yar yahay maaragtay oo go'aanka waxa uu baranayo isagu laakiin doorashada qofku marka uu weynaado ee uu noqdo qof weyn isaga ayaa maaragtay go'aanka qaadanaya sida uu dooranayo daraasada uu sameynayo marka markaynu taa ka nimaadno waxaan oran karnaa qofku go'aanka uu qaadanayo ee uu ku qaadanayo daraasada uu sameynayo heerka jaamacadeed waxaan anigu oran lahaa saddex shay maaragtay ayaa muhiimad gaar ah u yeelanaya saddexdaas shay oo ay tahay qofku inuu isagu naftiisa uu si fiican u analyze gareeyo oo isagu si fiican naftiisa ugu fiirsado oo qofku isagu naftiisa uu dib ugu noqdo oo saddexdaas shay naftiisa uu ku jeegareeyo ka bacdina uu go'aan qaato saddexda shay marka aan tilmaamayo waxa weeyaan qofku marka ugu horeysa inuu ka fikiro academic skills ka waxa loo yaqaan academic skills ka qofku uu leeyahay inuu si aad uga fiirsado waxa weeyaan markii aad ku jirtay dugsigii sare waxaad qaadanaysay maadooyin fara badan oo ah maxay subjects fara badan oo aad ku baranaysay dugsiga sare subjectskaas intooda badani waa kuwa loogu talagalay inay qofka ku hagaan daraasadiisa sare ee heerka jaamacadeed marka subjectska aad baranaysay qaar kastoo ka mid ah waxay khuseeyaan daraasadaha lagu sameeyo jaamacaadka tusaale ahaan oo kale haddii aad xoog ku lahayd maadadaha ay ka mid ka yihiin tusaale ahaan oo kale luqadaha oo languageska ah geography-ga iyo history-ga waxaa markaa ay noqonaysaa in daraasadada jaamacadeed subjects aad ku xooganayd qaar kuu fududeynay inaad tusaale ahaan oo kale inaad gasho social scienceska sida dhaqaalaha oo kale ama aad barato tusaale ahaan oo kale siyaasadda aad barato sociology-ga iyo arrimaha bulshada social work inaad barato ama related field oo maaragtay kuwa maxay la halmaana haddii aad xoog ku lahayd waxa loo yaqaano science-ka ama aad xoog ku lahayd waxa loo yaqaano sida physics-ka chemistry-ga biology-ga inaad fields science inaad ku daraasayso heerkaaga jaamacadeed marka academic skills-kaagu muhiim bay yihiin wixii aad dugsiga sare ku soo qaadatay adiga garanaya wixii aad xoog ku lahaydna adiga ayaa garanaya marka arrimahaas oo ah mawaadda xoog ku lahayd dugsigii sare inaad aad iyo aad u regard garayso marka aad dooranayso daraasada aad ku sameynayso jaamacadda waxa kale oo idin muhiim ah personal interest adigu waxaad xiisayso oo aad rabto inaad barato iyaguna waxay noqonaysaa arrin muhiim ah oo ay tahay inaad regard garayso marka aad dooranayso maxaad jeceshahay anigu political science-ka waan jecelahay as subject anigu dhaqaalaha waan jecelahay maadahan
anigu waan jecelahay medicineka, anigu waan jecelahay maybe public health. Yeah? Marka adigu wixii aad jeceshahay oo aad passionate ku tahay iyada lafteeda waa inaad tixgelin muhiima aad siiso marka aad dooranayso fiilka aad baranayso. qodobka saddexaad ee aan rabo inaan farta ku fiiqa waxa weeyaan career goals. maxaad rabtaa in aad shaqo ahaan qabato marka aad dhamayso daraasadaada jaamicadeed? waxaan rabaa inaan noqdo qof engineer, waxaan rabaa inaan noqdo qof siyaasadda waddanka iyo xisaabta ka jira waddanka ka qayb qaata, dee markaa political science-ka. waxaan rabaa inaan noqdo qof dhaqaalayahan oo dhaqaalaha waddanka analyze gareeya, siyaasadaha dhaqaalaha ee waddankana dejiya. markaa waa in economicskii aad barato. waxaan rabaa inaan dhismaha iyo waxyaabaha ku taxalluqa markaa faculty of engineering waa inaad markaa doorato. markaa wixii career ah oo aad rabto inaad mustaqbalkaaga aad ku shaqaysato iyada lafteedu waa inaad regard. saddexdaa shay ee markaan soo xusay ayaad regard garaynaysaa. waad dhinacyo fara badan baad ka eegaysaa adigoo saddexdaaba markaa tixgelinaya ayaad maaragtay dooranaysaa daraasada jaamacadeed ee aad baranayso. intaa waxaan raacinayaa marka laga yimaado isqiyaaska adigu aad isqiyaasto waxaa muhiima inaad dad fara badan la tashato. waxaan welibana kugula talinaya dadka aqoonta u saaxiibka ma aha inaad qof kasta oo kaasoo horbaxaba aad tirahdo maxaan bartaa, ama ardayda jaamacadaha ku jira aad tirahdo maxaan bartaa. maya, ardayda jaamacaduhu still iyagiiba iminka jaamacaddii ku jira information fara badan kama hayaan marka laga hadlayo suuqa shaqada iyo jaamacadaha gudahooda laftooda. ardayda jaamacadda iyagu information fara badan kama hayaan. waxaa muhiim markaa in la tashato dadka aqoon-yahanka ama xukuumadda iyo dawladda ku jira ama hay-adaha organizationska ka shaqaynaya ama businesska ku jira ee aad u malaynayso inay aqoon iyo khibrad iyo caqli adiga ay ku dheer yihiin. markaa dadkeenuna waa dad jecel ardayda wax baranaysa. qofkaad u tagtaaba waxaa laga yaabaa inuu kusoo dhaweeyo, waqti uu ku siiyo, kula taliyo oo uu maaragtay talo fiican uu ku siiyo. marka cidna ha ka xishoonina, ha ka khajilina. dadka maaragtay xafiisyada ay joogaan la ballama, ugu taga, talo weydiiya. marka waxaa laga yaabaa inay talooyin fiican ay idin siiyaan. marka idinkoo aan talooyin fara badan aan weydiinin dadka ay khuseeyaan, iyadana waxaa muhiim inaad aad uga baaraan degtaan inta aydaan dooranin. intaasoo dhan ood isku darteen waxaa kaloon ku dari doonaa ugu dambeyn, haddii aad intaas soo samaysaan shaqo fiican baad samayseen. ugu dambeyn diinteena islaamka waxay noo jidaysay qofku markuu ikhtiyaar ku jiro ay tahay inuu laba shay kala doorto. waxaa laynoo jidayay maaragtay salaad istikhaara la yidhaahdo, 2 ragcadooda. marka ugu dambeyn salaada istikhaarada ee maaragtay laynoo jidayay ee sunnaha iyadana tukada ugu dambeyn, kabacdina idinkoo ilaahay tala saartay doorta fiilka aad rabtaan inaad barataan. dhammaan ardayda kasoo qalin jibisay dugsiyada sare jamhuuriyadda somaliland waxaan u rajaynayaa mustaqbal ifaya oo barwaaqo leh. aad baan idiin salaamaya, waanaad mahadsantihiin inta aad daawateen videogan. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.